halkaygu yaraan naftayda markuu ila galay jacaylku ugu dambayntiina waxaa la iska yaqaano in qofku marka uu guursanayo si kastoo hayntiisu ay tahay uu dadaal dheeraada muujiyo arooska waxa la iska rabaa markay ugu liidato fargal qaali ah oo markaasi ninku uu siiyo lamaanihiisa nolosha ay wadaagayaan iyo waliba lacagtii lagu xafladeyn lahaa ee fantasiyaha arooska lagu dhigi lahaa nin Mareykan oo hadaba ku nool gobolka Texas ayay taasi bad la gashay ninkaasi markii uu aqal gali lahaa ayaa wuxuu xisaabiyay lacagaha faraha badan ee arooska uu ku kacayo waa tii fargalka tii xafladda tii fasaxa inta badan wadamada reer galbeedka dadkoodu aqalgalka kadib ay u baxaan xisaabaadkii buu isu geegeeyo deedna wixii yaraay uu hayay ayay la noqon weyday ninka odayga ah inay ku filan yihiin ninkii baa deedna intuu fakaray ayaa fakarkiisii hadaba uu bad kala sii geliyay ninkii intuu qori qaatay iyo baastoolad ayuu weerar ku qaaday baan ku yaala gobolkaasi Texas weerarkii baankaasi uu ku qaaday ayaa hadaba waxa la yaab leh ninkaas oo sida arkaysaana ninkaasi dhalinyarada ah shaqaalihii baanka ayaaba u sheegay ujeedada u socdo oo wuxuu yiri warniga waan guursanayaa deedna waxna ma haye ku soo shuba intaas oo dhan sida caadiga ah baananka caalamka imika ama xarumaha lacagaha lagu hayo kamaradihii ammaanka ilaalinayay ayaa ninka duubayay burkaba bahalka muudayine ninkii markuu lacagtii isku hubsaday oo deedna dhaqaajiyay ee uu isleeyay wallahi hadun bay ku gashay ayaa bilayska gobolka Texas waxa sawirkiisa iyo muuqaaladiisa markii uu baanka dhacayay iyo wixii uu ku hadlayay iyo xaajaadkiisa oo dhan soo dhigay Facebook-gooda ninkii odayga ahaa oo mabsuud ah oo isla wallahi hadun bay ku gashay ayaa gabadhii hadaba ay isguursan lahaayeen wali aanay iscalfanin ay ka aragtay muuqaaladiisa Facebook-ga bilaysku ay leeyihiin iyadoo la leeyahay ninkan yaa garanaya dadna isagiiba la hadasho waxay tiorniyo muuqaaladaasi halkaas ku jiraan waxa lagu qaatay inaad dhiibtid ninkii taladeedii buu qaatay deemala waxay muujinaysaa jacaylka faraha badan ee uu gabadha qudheeda u qabay oo dadna bilayskii buu tagay dambigii uu sameeyayna uu qirtay halkii uu ka aqal gali lahaa ayuunbuu dabeedna xabsi ka galay kaaga sii darana waxa la sheegay in ilaa imika loo diidan yahay ninkaasi in xabsigaba lagu soo booqdo wax badso mararka qaarkood wax beel bay leedahay qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka oo idin kala socoteen telefishinka Universal Studio iyaga magaalada Hargeysa waa aniga Cabdisalaam Herariya iyo asxaabtayda idin kaga tagayna nabadgelyo